ehelada marxuumad Rooda Cali Cabdi oo shantii bishii 8 2018 gacan ka xaqdaran ku dishay degmada Ceelaf Weyn ee gobolkaasi Sanaag ayaa cabasho ka muujiyay gaar ah oo kiiskaasi si sharciga baalmarsan u farageliyay iyagoo aan tashi kala sameyn ehelada marxuumadda waa siday hadalkooda u dhigeen ehelada marxuumadda ayaa dhanka kale baaqu diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo hay'adaha garsoorka ee ka howlgala dalka iyagoo ugu baaqay in arrintaasi hoos u eegaan si dhaqso ah wax uga qabtaan waxaana waayeel kan iyo wax garadkan ka soo jeeda ehelada marxuumad Rooda Cali Cabdi hadaladoodii kamid ahaa waayelkay wax garadka beesha faaraxiile maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii sanaad 2020 shirka jaraa'idka aanu maanta halkan ku qabanay wuxuu ku saabsan yahay cabasho aanu ka sidano dilkii ku dhacay marxuum Rooda Cali Maxamed oo lagu dilay aaga Ceelaf Weyn 2 sano ka hor xukun ay ka soo saareen heshiis ay ka galeen cuqaasha beesha la faarax iyo cuqaasha darays xukunkaasoo ah xukun aan u aragnay inuu ahaa xukun xaq darra xukun aan cadaalad u dhicin xukun xoog muquulisa xukun aan ciddii xaq u lahayd iyo albaabkii laga gelayay waxba loo marin cuqaasha cuqaal way tahay laakiin waxay cuqaal u tahay waxa loo egmaday xaqa ah iyo waxa xaqdarrada inay ilaaliso taasoo ma dhicin cuqaashaas waxa dhacday inay maxaan ku yiraahdaa albaabka laga geli lahaa dilka dhiig buraha waliya damyadii xaqa u lahaa iyadoo aan waxba ka weydiin isla markaana xoog muquunisay qaara xabsiga Ceelaf Weyn ku xidhxidhay qaara ay maxaan ku yiraahdaa xabsigooda ku xidhan yihiin ay go'aan iyo heshiis ay cuqaasha beesha daraysay ay ka soo gaadheen taasoo aragnay cadaalad xumo caqli xumo nabadgelyo xumo inay nooc dhiganta horseeda kartaan cabashada ka qabnaa waata cabashada waxaan ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi golayaasha sharci dejinta maxaan ku raaday baarlamaanka iyo guurtida hay'adda garsoorka intaasaan gaarsiinayna iyo dhammaan hay'adaha kale ee qusayso waxaan leenahay arrinta nabadgelyo xumo kama rabno maxaan ku yiraahdaa annaga nabadda ka wadna arrinta heshiis lagama cidii xaqa u lahaydna looma marin maxaa yeelay waa dhiig waa wax adag dhiigga albaabka laga galaa waa weliya damka in looga idam qaato baan anagu dee sharciyan qabnaa ma dhicin taas wax xalaaleynaya in dhiig waa gaboodfalka dhaca gaboodfalka ugu xun in cidii dhibta qabtay inta la xoogiyo oo la xidho cid aan lahayn weliya dam dhigo oo laga gaaro go'aan oo cid aan ku xaaraansan waa wax sharciga diinta iyo sharciga dadnimada iyo shuruucda Soomaaliland iyo shuruucda caalamiga ka dhana waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaada iyo hay'adaha doorka kulii cabashadaasaan idin soo gaarsiinayno wax ka qabta cadaalad xumo waynu ognahay waxa gobolka Sanaag khaasatan mintaqada Ceelaf Weyn la marayso iyo dhibaatada ay gaarsiisay intaas waa inta beeshay darays ee aan walaalanahay waxaanu ogeysiinaynaa arrinta mashaqada Ceelaf Weyn ka dhacday camiimtay inagu nabad baynu ka ahay inkastoo dilkaasu dilkii mintaqada ka dhacay dilku u fool xumo ahaa sida walaalaha kale oo isu dileen usmaynu dilino nabad baynu ahay dilka dhacay si wanaagsan baynu ka yeeloydinaad ka yeeshaan inaanu ka yeelay annagu aarsi iyo maxaan ku yiraahdaa dulmi aanan ciidan waxba ku lahayn dilo ma samayn idina waxaad ku dadaasheen inaad gacan ku dhiglihi aydan dulmiga gacan ku dhigina soo qabataan waad ku timaadeen waad ku keenteen waad ku mahadnaydeen xukuumadaynu ugu dhiibnay gacanta waxa loo geliyay garsoorka sharciga u leh maxkamadda gobolka Sanaag baa kiiskiisu ka furan yahay waa la dhageystay haddii aynu sharciga waa laga cararay looma cararay isla qaadano inaynu sidiisa u daynona waa okay haddii aynu isla qaadano inaynu wax ka door bedelan aragnona way inoo furanta laakiin way in dariiqooda loo maraa waxaan leenahay walaalayaal heshiiska in jooga cuqaasha ay la sameeyay xaraan buu waa taqaaniin gabadha Rooda Cali Maxamed baa loo jiray qabiilkeeda waa taqaaniin waxa waliya damka noqotay ciidan waliya damka waxa loogu abtiriyay cid aan dhalin
waxaa loo xalaalayay cid aanay xalaal u ahayn xumaan aan inoo horeyn baynu ku soo wadaa sheergaraynina heshiiska cuqaashay daraysna intaasaan gaadhsiinaynaa waayeelka iyo waxgaradka culimaa diinka iidla faarax oo uu kow ka yahay suldaan sharmaarke suldaan maxamed suldaan cabdicali waxba hoosugu dhaadhici maayo waxaan leenahay waxaannu idiin sheegaynaa waad aragtaan reerka madax dhaqameedkiisii masiir xumada uu gaadhsiiyey halka uu la marayo ma qaadan karo ma yeelino laysuguma qabiilayn karo madaxa waxa laga qabta arrinta waxa laga rabay nabadgelyo meesha kama se dhacayso kamay dhicin xaq baanay ahayn cadaalad baanay ahayn islaanimo aanay ahayn cid waliba way aragtaa meesha xaq waxa u lahaa labada weliyadam ee wax ka dhaxayeen labadii waa labadaa la sheegay xabsi guriga iyo xabsiga ceelfin midda ku kala xidhnaa cid kaloo meesha wax ka rabtayna ma jirin ciddiina lama marin cid kaleetoo aan ahayn ayaa loogu mala awaalay oo waxaan samaysay oo sharciga loogu sameeyey leeyahay arrintaas waa sida odayaasha horeba sheegeen saasaan ku raacsannahay annaguna aanu aragnaa xaqdarraanu aragnaa xaqdarro inaan arrintaas xaq ahayn oo xaqdarro tahay oo dulmi cad halkaa tahay ayaanu annagu u aragnaa cuqaasha arrinteedina dee waad aragtaan dee cid bay u xambaarisay waxaanay xaq u lahayn cidna way ka tagtay waa labadii weliyadama xaqa u lahaa waxa weeyaan marka dee diya la qaadayo waxa diyada lagu qabuujiyaa ajal go'day ciddii ay ka dhimatay ciddii xaqa uu ku buuxsamay ee diyada lagu lahaa ee dilka geysatana waa samarsiis baa looga dhigaa war haddii labadii weliyada midna xidhnaa oo xabsi ku jiray midna xabsi guryaha war cidda diyada loo qaray waa ayo laygu yeedhay yacni waxa laygu yeedhay labadii reer ee xaqaasi ka dhaxayay wayshayaan ee labada garab ahaa labadaa garab qolo dee mas-uul baa waxa weeye diyadii bay doonaysaa qolana waxay doonaysaa waxa weeyaan mowqif hore ay qaadatay oo waxa weeyaan in loo qisaasaabay doonaysaa kale wax ka dhamaya anigu waan tegey waxaan u tegey labadii garab oo wada fadhiya oo wada jooga waana caddaynayaa waxaan ku yidhi cidna ha ku saacidina mowqifkiina inaad weli xaqaana idinkaa leh aniga ha igu saacidina cid kalena ha ku saacidina laakiinse go'aan ka qaata waxaa ka qabtaan waxay go'aankii aanu maalintii ugu horraysay qaadannay baanu annagu qabnaa waa labada weliyada marka subaxiina waayeelkii baanu tagnay waxa noo muuqatay inaanay hawshaasi isqusaynin ee laba weji wax loo kala wado annagu markaa waanu iska xidhnay oo hawshaa waanu ka kacnay waanuna iskaga tagnay markuu nooga muuqan waayey doorkii aanu ku lahayn inaan meeshaba ku jirin aanu cadaaladina ka muuqan oo naloo caddeeyey labadii xaqle midna inuu xidhan yahay midna dee xabsi guri iska yahay oo gurigiisii joogo cidina aanay u tegin markaa dee waxaanu leenahay walaalayaal annagu waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi hay-adaha garsoorka weeyaan cuqaal baa halkaa joogtay cuqaashu waxa loo igmaday ee loo dirsaday waa inay xaqa dadka ku hoggaamiso ma aha inay dulmi ku hoggaamiso annagu waxaanu leenahay cuqaashaasi arrintaas sida ay u qabatay waa dulmi cad oo aan leexleex lahayn cidna way saaciday cidna way raabtay labadii garabee xaqaa wada lahaa oo qole ku sheeganayso dee weliyadama ku sheeganayso markaa waxaanu leenahay dee sidaa nagagama aha mas-uul nagagama aha ehelada marxuumad rooda cali cadee oo shantii bishii 8 2018 gacan ka xaqdaran ku dishay degmada ceelaf weyn ee gobolkaasi Sanaag ayaa cabasho ka muujiyay cid gaar ah oo kiiskaasi si sharciga baalmarsan u farageliyay iyagoo aan tashi kala sameyn ehelada marxuumada waa siday hadalkooda u dhigeen ehelada marxuumada ayaa dhanka kale baaqu diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo hay'adaha garsoorka ee ka howlgala dalka iyagoo ugu baaqay in arrintaasi hoos u eegaan si dhaqso ah wax uga qabtaan waxaana waayeel
waayeelkan iyo waxgaradkan ka soo jeeda ehelada marxuumad Rooda Cali Cabdi hadalladoodii ka mid ahaa waayeelka iyo waxgaradka beesha Faarax Ciidle maanta way taariikhdu tahay 24 bishii sanaad 2020 shirka jaraa'idda aanu maanta halkan ku qabanay wuxuu ku saabsan yahay cabasho aanu ka sidano dilkii ku dhacay marxuum Rooda Cali Maxamed oo lagu dilay aagga Ceelfayn 2 sano ka hor xukun ay ka soo saareen heshiis ay ka galeen cuqaasha beesha Ciidle Faarax iyo cuqaasha Idarays xukunkaasoo ah xukun aan u aragnay inuu ahaa xukun xaq darraa xukun aan cadaalad u dhicin xukun xoog muquulisa xukun aan ciddii xaq u lahayd iyo albaabkii laga gelayay waxba loo marin cuqaashu cuqaal way tahay laakiin waxay cuqaal u tahay waxa loo egmaday xaqa ah iyo waxa xaqdarrada inay ilaaliso taasu ma dhicin cuqaashaasu waxa dhacday inay maxaan ku yiraahdaa albaabka laga geli lahaa dilka dhiig buuraha weliya damyadii xaqa u lahaa iyadoo aan waxba ka weydiin isla markaana xoog muquunisay qaarra xabsiga Ceelfayn ku xidhxidhay qaarra ay maxaan ku yiraahdaa xabsigu ugu xidhan yihiin ay go'aan iyo heshiis ay cuqaasha beesha Idarays galeen ay ka soo gaadheen taasoo aan aragnay cadaalad xumo caqli xumo nabadgelyo xumo inay nooc dhiganta horseeda ka rabtaan cabashada ka qabnaa waata cabashada waxaan ugu gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi golayaasha sharci dejinta maxaan ku raaday baarlamaanka iyo guurtida hay'adda garsoorka intaasaan gaarsiinaynaa iyo dhammaan hay'adaha kale ee qusayso waxaan leenahay arrintaa nabadgelyo xumo kama rabno maxaan ku yiraahdaa annaga nabadda ka wadna arrintaa heshiis lagama aha ciddii xaqa u lahaydna looma marin maxaa yeelay waa dhiig waa wax adag dhiigga albaabka laga galaa waa weliyadamka in looga idam qaato baanu anagu dee sharciyan qabnaa ma dhicin taas wax xalaalaynaya in dhiigu waa gaboodfalka dhaca gaboodfalka ugu xun in ciddii dhibta qabtay inta la xoogiyo oo la xidho cid aan lahayn weliyadam dhigo oo laga gaadho go'aan oo cid aan ku xaaraansan waa wax sharciga diinta iyo sharciga dadnimada iyo shuruucda Soomaaliland iyo shuruucda caalamigaaba ka dhana waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaada iyo hay'adaha doorka kuli cabashadaas aan idin soo gaarsiinayno wax ka qabta cadaalad xumo waynu ognahay waxa gobolka Sanaa khaasatan mantaqada Ceelfayn la marayso iyo dhibaatada ay gaarsiisay intaas waa intaa beesha Idarays ee aan walaalanahay waxaanu ogeysiinaynaa arrintaa mashaqada Ceelfayn ka dhacday camiimtay inagu nabad baynu ka ahay inkastoo dilkii mantaqada ka dhacay dilku u fool xumo ahaa sida walaalaha kale oo isu dileen usmaynu dilino nabad baynu ahay dilka dhacay si wanaagsan baynu ka yeeloydina aad ka yeeshaanaanu ka yeelay annagu aarsi iyo maxaan ku yiraahdaa dulmi aanan ciidan waxba ku lahayn dilo ma samayn idina waxaad ku dadaasheen inaad gacan ku dhiglihii aydan dulmiga gacan ku dhigina soo qabataan waad ku timaadeen waad ku keenteen waad ku mahadnaydeen xukuumadaynu ugu dhiibnay gacanta waxa loo geliyay garsoorka sharciga u leh maxkamadda gobolka Sanaag baa kiiskiisu ka furan yahay waa la dhageystay haddii aynu sharciga waa laga cararay looma cararay isla qaadano inaynu sidiisa u daynona waa okay haddii aynu isla qaadano inaynu wax ka door bedelan aragnona way inoo furanta laakiin way in dariiqooda loo maraa waxaan leenahay walaalayaal heshiiska in jooga cuqaasha ay la sameeyay xaraan buu waa taqaaniin gabadha Rooda Cali Maxamed baa loo jiray qabiilkeeda waa taqaaniin waxa weliyadamka noqotay cid aan weliyadamka ahayn waxa loogu abtiriyay cid aan dhalin waxa loo xalaalayay cid aan xalaal u ahayn xumaan aan inoo horeen baynu ku soo wadaa sheer garanayna heshiiska cuqaasha Idaraysna intaasaan gaadhsiinaynaa waayeelka iyo waxgaradka culimada diinka Ciidle Faarax oo uu ka yahay Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi waxba hoos ugu dhaadhici maayo waxaan leenahay waxaanu idiin sheegaynaa waad aragtaan reerka madax dhaqameedkiisii masiir xumada uu gaarsiiyey halka uu la marayo
ma qaadan karo ma yeelino laysuguma qabiilayn karo madaxa waxa laga qabtaa arrinta waxaa laga rabay nabadgelyo meesha kama se dhacayso kamay dhicin xaq baanay ahayn cadaalad baanay ahayn islaamnimo aanay ahayn cid waliba way aragtaa meesha xaq waxa u lahaa labada weliyadam ee wax ka dhaxayeen labadii waa labadaa la sheegay xabsi guriga iyo xabsiga ceelafweyn midda ku kala xidhnaa cid kaloo meesha wax ka rabtayna ma jirin ciddiina lama marin cid kaleetoo aan ahayn ayaa loogu mala awaalay oo waxaan samaysay oo sharciga loogu sameeyey leeyahay arrintaasu waa sida odayaasha horeba sheegeen saasaanu ku raacsannahay annaguna aanu aragnaa xaqdarraanu aragnaa xaqdarro inaan arrintaasu xaq ahayn oo xaqdarro tahay oo dulmi cad halkaa tahay ayaanu annagu u aragnaa cuqaasha arrinteedina dee waad aragtaan dee cid bay u xambaarisay waxaanay xaq u lahayn cidna way ka tagtay waa labadii weliyadana xaqa u lahaa waxa weeyaan marka dee diya la qaadayo waxa diyada lagu qabuujiyaa ajal go'day ciddii ay ka dhimatay ciddii xaqa uu ku buuxsamay ee diyada lagu lahaa ee dilka geysatana waa samarsiis baa looga dhigaa war haddii labadii weliyada midna xidhnaa oo xabsi ku jiray midna xabsi guri ahaa war cidda diyada loo qaray waa ayo laygu yeedhay yacni waxa laygu yeedhay labadii reer ee xaqaasi ka dhaxayay wayshayaan ee labada garab ahaa labadaa garab qolo dee mas-uul baa waxa weeye diyadii bay doonaysaa qolana waxay doonaysaa waxa weeyaan mowqif hore ay qaadatay oo waxa weeyaan in loo qisaasaabay doonaysaa kale wax ka dhamaya anigu aan tegey waxaan u tegey labadii garab oo wada fadhiya oo wada jooga waana caddaynayaa waxaan ku yidhi cidna ha ku saacidina mowqifkiina inaad weli xaqaana idinkaa leh aniga ha igu saacidina cid kalena ha ku saacidina laakiinse go'aan ka qaata waxaa ka qabtaan waxay go'aankii aanu maalintii ugu horraysay qaadannay baanu annagu qabnaa waa labada weliyada marka subaxiina waa yeelkii baanu u tagnay waxa noo muuqatay inaanay hawshaasi isqusaynin ee laba weji wax loo kala wado annagu markaa waanu iska xidhnay oo hawshaa waanu ka kacnay waanuna iskaga tagnay markuu nooga muuqan waayey doorkii aanu ku lahayn inaan meeshaba ku jirin aan cadaaladina ka muuqan oo naloo caddeeyey labadii xaqle midna inuu xidhan yahay midna dee xabsi guri iska yahay oo gurigiisii joogo cidina aanay u tegin markaa dee waxaanu leenahay walaalayaal annagu waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi hay-adaha garsoorka weeyaan cuqaal baa halkaa joogtay cuqaashu waxa loo igmaday ee loo dirsaday waa inay xaqa dadka ku hoggaamiso ma aha inay dulmi ku hoggaamiso annagu waxaanu leenahay cuqaashaasi arrintaas sida ay u qabatay waa dulmi cad oo aan leexleex lahayn cidna way saaciday cidna way raabto labadii garabee xaqaa wada lahaa oo qole ku sheeganayso dee weliyadama ku sheeganayso markaa waxaanu leenahay dee sidaa nagagama aha mas-uul nagagama aha